soo dhawaada waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinka dabageeyo war cusub oo arrimaha soo galootiga gaar ahaan dadka darbika boodka ah ka soo baxay. waxaan insha allahu tacaala eegi doonaa amar ka soo baxay maxkamad ku taala Boston, Massachusetts. maxkamadan oo ay fadhido judge federaali ah ayaa waxa ay soo saartay akhbaar cusub oo ku saabsan arrimaha dadka soo galootiga ah. judge-kan ayaa waxa ay soo saartay amar ah in maamulka madaxweyne Donald Trump iyo xertiisa ay ku qasban yihiin oo laga rabo in ay dib u soo celiyaan dadkii darbika boodka ahaa oo markii madaxweyne Donald Trump uu imaaday warqadii ugu horeysay ee digreetada ahayd uu ka saxiixay warqadaasoo ahayd executive order, taas oo u diideysay dadka yimi xilligii madaxweyne Biden oo dadka badankiis ay soo galeen 4 sano oo Biden uu haystay, maadaama 4 sano hore uu haystay Trump aan cid soo gashay aysan jirin. 4 sano dad fara badan oo darbiga ka soo booday ayaa waxaa jiro markii madaxweynaha dalka Mareykanka hadeer jooga la doortay uu soo saaray digreeto uu kala noqonayo sharciyad ahaantooda inta keiskooda uu socdana lagala noqonayo warqadaha shaqada oo employment authorization la yiraahdo iyo programkii ay ku sugayeen oo ku sugta ahaa sharci inta laga gaarayo go'aan maxkamadda ay ka gaarayso. marka programkaas waxa soo far hadeer waxay yiraahdeen ku joogay waxay dadka ku soo galay programkii aapkii ahaa CBP1 oo Customs and Border Patrolka, kaas oo loo isticmaali jiray in markaad soo galayso Mareykanka aad xilligii Biden uu sameeyay in ballan ah ka soo samaysato si xuduudda markaad timaado dadka uga fara badanin qolyaha immigrationka. programkii isaga ahaa marka dadkii ku imaaday waxa ay hadda gaarayaan baa la yiri 900,000 ilaa 1 milyan oo qof. programkii Trump iyo xertiisa iyo gabadha hadda shaqada laga ceyriyay ee Kristi Noem waxa ay u isticmaaleen in ay ugu diidaan dadka inay isku tarxiili karto oo adiga aad isku diri karto self deportation bay ka dhigeen. laakiin marka hore wuxuu ahaan jiray inaad ballan ka soo samaysato si aad xuduudda markaad timaado adoo ballan leh officerkii immigrationka aad dacwadaadii iyo keiskaagii ugu dhiibato. dadkii marka programkaas ku imaaday 1 milyan oo qof ku dhowaad buu wuxuu soo saaray Homeland Security-ga iyo madaxweyne Trump executive order-kii uu saxiixay waxay ka dhigeen dad sharci darro darbiga uga soo booday in la tarxiilana ah. wuxuuna kala noqday statuskii ama nidaamkii ay ku joogeen dalka oo u ogolaanayay inay helaan warqadda shaqada ee work permit-ka iyo sidoo kale inay intay sugayaan dalka xabsiga banaankiisa ay joogaan. dad badan ayaa dib loo xirxiray oo la celiyay. marka judge-kan gabadhan judge-ka ah oo judge federaali ah waxaana ay joogtaa maxkamadda degmada ama district court-ka ku taala Boston, Massachusetts state-ka la yiraahdo. waxay soo saartay amar ay dul dhigtay in dadkaas oo dhan loo sameeyo reinstatement, in loo sameeyo dib loo soo celiyo statuskoodii oo ay shaqada waxa ay ku joogeen dib loo soo celiyo oo aan lagala noqon karin bay tiri. so dadkaas oo dhan 1 milyan ah ku dhowaadka ah oo darbiga ka soo booday kuwa la qabtayna waa in la sii daayaa bay tiri oo inta keiskooda go'aan laga gaarayo maxkamad sugayaalka ay yihiin. kuwa aan hadda la haynin oo aan la qabaninna waa in loo ogolaadaa inay dalka Mareykanka si xor ah ugu noolaadaan warqadoodii work permit-kana la siiyo. marka madaxweynaha dalka Mareykanka hadeer Trump iyo qolyahan isaga garabka u ah badana way ka soo horjeedaan arrimaha noocan oo kala ah in ay saa u dhacaan, way ka soo horjeedaan badana. marka waxaan jeclahay in ay guarantee inay horta appeal ka qaadan doonaan go'aanka isaga ah, sababtoo hadda waxay isu diyaarinayaan inay dad fara badan ay tarxiilaan inkasta oo judge-kan hadda uu ka hor istaagay. dadka marka sharciga uma diidi kartaan baa lagu yiri, uma diidi kartaan sharciga, waa in aad inta ay sugayaan xor ka dhigtaan dulkooda ay wareegaan work permit-koodii iyo waxoodii dhanna la siiyo. keiskaas marka kolley hadeer weli wax raacfaana oo ay ka qaateen oo appeal oo ay ka qaateen ma jirto, laakiin waa la rajaynayaa in ay raacfaan ay ka qaadan doonaan arrinka isaga ah oo ay dhihi doonaan ma ogolaanayno dadkan waa dad darbiga ka soo booday. waa taqaanaan dee cadaawadda ay u muujiyaan
dadka soo galootiga oo immigrationka marka arrinkan wuxuu keeni karaa in jaajajka maxkamadaha jooga hataa federaaliga oo immigration courtska jooga ama immigration judgeska ay fududeeyaan arrinkan isaga sidoo kale waxa ay sheegtay aabka markii hore dalka lagu imaan jiray oo appointmentiga laga soo samaysan jiray oo iyaga ay hadda u rogeen mid dadka ay ku celiyaan oo self deportation ka samayn karta adiga iska tarxiili karto in asaga dhanba la joojiyo bay tiri haddii aan loo ogolaan doonin dadka soo galayo inay appointment ka soo samaystaan tan labaad oo ay amartayna waxa waaye policy waxaa jiro siyaasad uu ku shaqeeyo madaxweyne Trump oo tookadiisii horena uu isticmaalay siyaasaddaas oo dhehaysa qofka intuusan soo gelin dalka waxa la yiraahdo policy la yiraahdo remain in Mexico qofka waa inuu Mexico joogaa oo halka uu deganaa ku sugaa inta uu ka helayo ogolaansho Mareykanka in uu yimaado so waxa dhacday dad fara badan oo appointment ama ballan ka rabay inay ka qabsadaan aabka oo Mexico ku sugnaa oo marka iyada nafteedaba ballan ka haystay ba January 20 bisha January maalinkii madaxweyne Trump la dhaariyay warqadii ugu horeysay oo uu soo qabsaday nin ciil qabo ahaa warqadii ugu horeysay oo uu soo qabsaday oo uu saxiixay waxay noqotay executive order uu kaga hor imaanayo arrinkaas isaga oo dadkaas macnaha CBP1ka soo isticmaalay aabka oo ballanta soo samaystay oo sharciga sidoo ahaa u soo raacay dadkaas marka waxay tiri dadkii ballamaha ay ka kansaleenna waa in dib u eegis lagu sameeyaa oo de Mexico iyo meelahaas staaga ku noqday hadeer oo wali ku xanimay iyagana waa in waxa ay tiri judge-kaas maxkamadda soo saartay warqadda soo saartay waa in dib u eegis intercase-kooda lagu sameeyo loo ogolaado dalka inay intay yimaadaan ay iyagana asylum ama magangelyo doon ay apply garayaan marka go'aan ka farxin doono ma aha markaad si u eegtid iyaga waa taqaanaa meesha ay ka taagan yihiin dadka soo galootiga iyo immigrationka iyo dadka immigrantska marka go'aan ka farxin doono ayaga ma noqonayo laakiin waa go'aan ay qaadatay maxkamadda hoose ee federaaliga gaar ahaan judge awood badan leh oo maalin dhaweyta hataa dacwad ku soo oogtay ayaga ku saabsan dhanka immigrationka oo ahayd in dadka iska hayn karin qofka ay soo xirto qolyahan ICE in aan la iska hayn karin oo qofka bini aadan uu yahay oo xaq uu u leeyahay hadduusan dambi lahayn ama in loo ogolaado inuu lacag iska dhigi karo bond uu bixin karo iyo in loo ogolaado in qofka uu dowladda la challenge gareeyo sidii qof American caadi oo citizen oo kale oo wadan haysta dhalasho dalka Mareykanka oo kale inuu la challenge gareyn karo qofka dowladda oo uu ka soo horjeesan karo xarigiisa la xiray in uu yahay qalad iyo in uu sax yahay marka judge-kan usbuuc gudihiisa waa markii labaad oo arrin ka soo horjeeda Trump iyo xirtiisa oo ku saabsan arrimaha immigrationka ay soo saarto tii hore racfaan buu ka qaatay maxkamadda sare oo iyada ka koreysa district court iyada joogta tan ka sareysa appeal courtka oo 8th circuit-ka ku taala Missouri waxa maadaama federal courts ay yihiin oo meel kasta ku yaali karaan steedyada ay ka soo saari karaan go'aanka baa waxay ku raacday Trump iyo xirtiisa in qofka la iska hayn karo oo meeshan lacag la kala cunaya in qofka la iska hayn karo oo lacagtaas maartay ay kala qaadanayaan ee barnaamijyadan ay kala kacsanayaan ay ku sii wataan laakiin hadda go'aankan wali go'aanka ma aysan gaarin iyada go'aanka way gaartay warqadina way soo saartay today marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in dadka darbiga ka soo booday loo ogolaado kaysaskoodina inay sida caadiga u socdaan iyaga oo waliba dibadda jooga oo shaqadoodina ay u socoto nidaamkoodii iyo work permit-koodii warqadii shaqada iyo wax walba ay diyaar u yihiin inay u sii socoto arrinkan waa aad iyo aad buu muhiim u yahay in dadka jac laga dhaho darbi ka boodka oo sida sharciga dalka ku soo galay marka judge-kaas warqadaasi soo saartay maanta go'aankaas ay qaadatay maxkamadda hoose waxaan fiirin doonaa go'aanka iyagana ay ka qaataan I am sure 100% boqolkiiba boqol waa huba in horta appeal qaadan doonaan Trump iyo xirtiisa iyo marka la fiiriyo qolyahan maaga iyo isu heshanayo waa arki doonaa hadduu ilaahay idmo waxaa kale oo maanta la joojiyey warehouse-yadii waaweynaa bilmadii waaweynaa oo warehouse-yada ahaa alaabta lagu kaydin jiray oo baryahan dambe maamulka intuu iibsado
uu ka dhigaya xabsiyada dadka lagu hayo programka isaga ah maanta waa ninka cusub oo hadda lagu soo bedelay Christy Noem ninka cusub oo lagu soo bedelay Homeland Security-ga waxa uu sheegay maanta in programkii isaga ahaa la joojiyey oo aysan rabin inay warehouse cusub ay intay iibsadaan ay u bedelaan meel oo xabsi ah ama detention center dadka lagu sii hayo marka programyadan way soo furfurayaan waxaan rajaynaynaa inaysan go'aankaas aysan ka qaadan appeal haddii appeal qaataanna in aysan shaqaynin sababtoo ah dadkan waxay u baahan yihiin nolol inay sii shaqaystaan inta go'aan laga gaarayo oo maxkamadda immigrationka ama yes ku dhahayso ama no ay ku dhahayso waxaan fiirin doonaa insha allahu tacaala wixii kale oo ka soo kordha oo akhbaar ah oo immigration waa idinla soo wadaagi doonaa hadduu alla idmo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum